soo dhawaada casharkeedii shay waxa weeyaan inaan barano maanta gaariga qaybtiisa hore ama caloosha gaariga qaybaha hore gaariga ama meesha biyaha gaariga lagu shuba ama oilada meesha laga fiiriyo horta hore waxa ka horeysa inaad barato sida loo furo bonnet hore gaariga bonnet gaariga halkan ayaa laga furaa qaybtan ayaa kor u qaadaysa marka aad furto qaybtaas wuxuu leeyahay inaan furno lesi aan fiirna marka aad furayso bonnetkan waxaa la rabaa gacanta bidixdana ku qabato kor u qaado gacanta midigtana looga ugu saarto albaab loogan ayaa ka saaraysa gacanta bidixdana ku qabanaysa okay biru leeyahay birtan ayaan gelinaynaa of course aan imaana cashirkeena maanta sida ii sheegay waxaan dhahay waa basic mechanic ama qaybaha hore gaariga in dareewalku inuu barto laga rabo waxa idinkaga bilaabayaa maanta bitriga horta bitrigan shaqo ahaan gaariga wuxuu u qabtaa inuu dabka gaariga keediyo ama dabka gaariga ayuu store gareeyaa dabkan uu gaarigu store gareynaya wuxuu ka imaanaa meel la dhaho alternator gaariga ama diinimada gaariga ayana waa taas waxay samaysaa ayada shaqo ahaan gaariga u qabataa in dabka gaariga ay u dhaliso saddexdaas kula shaqeeya qaybaha dabka gaariga waxaa la lahaa bitriga alternator iyo starter bitrigan waxa idin sheegay in dabka gaarigu keediya alternator ama diinimada gaariga waxay dhalisaa dabka dhalisaa waxay keentaa bitriga starter-dana of course markaay hoos ku jirtaa ayadana waxay isticmaashaa in gaariga uu injinkeedu ay kicis camal ama injinka gaariga ay start gareyso okay aan ka bilaabno marka bitrigan horta khaasatan ciladaha ku imaado saddexda ciladood oo bitriga in badan ku imaado waxa weeyaan loss of connection haddii baalahan ama terminalkan ay ka dabacsan yihiin bitrigaaga cilad ay ku imaani oo dablaan ay ku dhacayso because terminalka markay ku dhuuqsan yihiin waa markuu bitrigaaga uu dab helayo second waxa ka fiirinaysaa rusting haddii birahan is haystaan ay dabacsan yihiin ama oo wasaq ay ku jirto labada dhax asagana xilligaas bitrigaaga wax dab uu helayo malaho third waxa ka fiirinaysaa loss of power ama markuu dablaan yahay bitriga markuu dablaan yahay of course waxa keen karto sida ii sheegay inuu rusting leeyahay ama oo loss of terminal uu leeyahay second waxa ku garanaysaa bitriga wuxuu leeyahay 3 colors saddex color uu leeyahay sida arkayso waa green halkan markuu yahay greenka xilligaas bitrigaaga uu fiican yahay aan bitrigaaga waxa way wax cilad uma qabo uu fiican yahay balaaga hadduu qudso halkan calaamad balaaga ka qadso bitriga xilligaas ama dablaan wuxuu yahay dablaan inaad dab u raadayso markaas ama meel lagu charge gareeyo jirto sida qaybaha electronic geenaysa way ku charge gareynayaan sifo bitrigaaga uu dab fiican u helo dad waxa weeyaan cadaan hadduu halkan ku tuso waa replace macnaheedu waxa weeyaan in aad bedesho qaybtaas bitriga oo dhan inaad bedesho waa markaa dadka kale isku maana qaybtan waxa la lahaa alternator ama diinimada gaariga ayadoo horta ciladaha ugu badan oo ku imaado waxa weeyaan waxa ku fiirin kartaa waxa la laho dabka dhalasa ayadana dabka dhalin kara waxa ku garan kartaa qaybahan ayaa lagu qabanaa any kind of metal bir waxay ka ahaataba markaad gaariga aad birta ku fiirinayso birtaas inay shanaaqal raa gaariga so let me try ina gaariga shido saan u garno shaqada ay qabato haddii aad rabto inaad ku shaqeynayso in kalena ogaato oo alternator gaariga ama diinimada gaariga waxaa soo qaadaysaa any kind of metal bir aad soo qaadaysaa soo birtaas waxaa ku qabanaysaa qaabtan haddii ay ku dhigto aragto waa bisay bir qabatahan oo ku dhigi bir qabatahan haddii ay qabato aragto inay ku dhigayso xilligaas alternator-daada way fiican tahay wax cilad ma laha waxaa kaloo samayn kara inaad gaariga dablaan u noqon kara qaybtan sida arkayso shindiyan shaqo badan isku hayaa haddii asagu kaa goon yahay wax dabay ku dhalanaysa ma laha dadli waxaan fiirinaynaa qaybaha oilka gaariga oilkan gaariga horta kan waxaa lagu biqaamaa oilka gaariga oil gaariga ayaa lagu fiiriyaa haddii gaariga oilkaaga fiirato wax walba waxaa muhiim ah in oil gaariga iska fiirata oilada waa very important inaad fiirisa qaybaha waxaa ku garan kartaa ushaan cabirkeeda oilka hadduu halkan ku gaaro inuu full yahay halkan hadduu ku gaarna inaa qaybaha mechanic geesa oilka lagu bedelo oilka waxay maan so that you can change your oil ayaad la fiirin hal mar marka geliso qofkas marka aad soo saarto
سأركيسو أولكي جاريجا أوكي inkastoo gaariga uu saaran yahay meel dalcade laakiin waxaan rabaa gaariga oil marka ka check-garanayso inuu gaariga ku saarnaado ama ku yeelo meel isla sameeyo of course oil kan waxa ku garan kartaa marka oo kale gaarigaaga aad oil ka bedelayso ninka ku sameynaya ama gaariga qofka sameynaya waxa jirto waraaqeeda ku qoraa jirto oil service next time marka bedel leed mileage lagu xiraya ama mileage flow markay gaarto oil ka bedel lagu dhigraa asaankaas waa ka ogaan kartaa waa isla arki doona badli waxa weeyaan qaybta biyaha gaariga qaybta biyaha saarkayso danger ku saarno hadii gaarigaaga xilligaas uu kulul yahay amal waxa baadkana qabanaysa hadii wax kulul ka dareento kan marka furayso waa just light soodada ashto marka furayso amal soodada oo booliso ma waa same like that marka furayso qiyaas leh ama waxa isticmaaltaa maro istiraashe sifa oo furto haduu qawi yahay caado oo fur kartaa sifa gaarigaaga biyaha ugu dhaxto kan waxaan ku haysanaa coolant tangan waa daawo sida arkaysa gudaha ku jirto daawo oo loo isticmaalo in gaariga maartay haduu gaariga biilaana ku dhacdo ayada u saaciiso gaariga ay u qaboojiso mostly ma isweydiisay gaariga waxa sababta inta loo yeelay ama shabaq in lagu siiyo gaariga oo dhan halkan waxa shabaq u leeyihiin kan waxa ku yeelay radiator ama radiator tanka ku yeelo ayada waxa loo targalay biyahan inta ku jiro inay hawo qaataan oo gaariga ku qabow marka insha Allah waxa la eego doonaa qaybta oilada saadii sheegay qaybta xigta waxa weeyaan kan halkan ku yeelo tanga arkayso waxa lagu shubaa wiberka biyaha gaariga arkayso calaamad wiber leeyahay ama calaamad masxad leeyahay qaybta waxa laga isticmaalaa in gaariga biyihiisa marka wiberka masxada u baahan tahay hore gaalka dhaqato kan aad aragto ina biyo ku shubato sifa u isticmaasho jeesada wasakha xush hore aad asaga u isticmaasho kale aad isticmaasho in ay ka qasmayso ayaa xalisa dadlo waxa la fiirinaa qaybta idin sheegay oilada mileage ku xir waraaqda idin sheegay just like this mileage kan waraaqda ku qoran ayaa ka fiirinaysa oo qofka markuu ku soo wajina waraaqda this second mileage waxa weeyaan next service ka ku qoraya wuxuu ku leeyahay waa qaybta oilada gaariga oilka marka ka bedel rabto such kinds oo halkan ku dhagan dareelinta qurax ugu dhagsadaan laakiin waxa looga dhagsadaa in maartay gaariga next service ka ama oilada waqti dambe ka bedel lahayd inaad halkan ka garato halkan sida arkayso waa 5000 waxa 6522 markii aad dambe halkan ka fiirinaysa markii odd mileage hadii gaariga amal uu gaaray inaan bedelo waa marka oil halkan ayaa laga fiirin karaa muhiim asana gacankaasna waa muhiim inaad ka fiiriso hadii gaariga oilada on mileage time lagu soo qoriyo gaari way aad aragtino gaariga oilka wali ka nisqaamiyahay waa ina marka service geesa si fiican gaarigaaga celiisa lagu jagareeyaa kuna soo dhaw macalinka Maal Ahmed Saqan Drive School